وسؤال داويني دلك يا إسكالي. بسم الله الرحمن الرحيم. كلنتي وعن دلهانتي مداودياشada qiimaha iyo qadarinta mudan oo meel kasta dunida daafaheeda ku joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkii falaqaynta siyaasadda oo aan idin daadihiyo aniga oo ah Shaafici Cabdinaasir Maxamed Shaafici Shaacir. barnaamijka waxaan kaga hadli doonaa maanta aan diiradda ku saari doonaa muranka siyaasadeed ee ka dhashay ama hadheeyay doorashada Soomaaliya 2021 waxaana iigu martiya aqoonyahan siyaasadeed Axmed Cabdiraxmaan Cilmi oo ah aqoonyahan siyaasi ah oo ka soo jeeda gobolada waqooyi. Axmed ku soo dhawow walwal media. Shaafici waan ku dhawahay dhamaan waan salaamayaa bahda media walwal waan ku dhawahay media adeer aad iyo aad Axmed u mahadsan tahay. waayadan waxaa socday muran siyaasadeed ama shirar istaba joog ah oo qabanayaan musharaxiinta mucaaradka ah ee u taagan xilka madaxtinimo ee Soomaaliya 2021 maalin dhaweed waxay qabteen shirar socday dhowr maalmood. shirarkaas waxay ka soo saareen qodobo tiro badan oo ay soo saareen qodobada ay soo saareen musharaxiinta halkaas isugu tagtay ama ku midowday see u aragtaa. bismillaahir rahmaanir rahiim. adeer musharaxiinta shirka qabtay waa madaxweynayaashii dalka soo maray ra'iisul wasaarayaashii wasiiro inkastoo ay tiradoodu fara badan tahay qodobadii ka soo baxay anigu waxaan u arkaa inaanay ahayn qodobo ka gadmaya sababtoo ah nimankaasi xisbiyana maaha ururay marayeen xisbiyo dadka mujtamaca ka haysta boqolkiiba tiro la garan karo codkooda ma aha marka kama duwana dadka shacabka ah oo nin waliba uu yiraahdo aniguba musharax baan ah wax allaala waxay ka duwan yihiin ma jirto wixii ay soo saareen waynu aragnay qodobo ka gadmaya ma aha waxaan leeyahay nimankaas anigoo ku talin lahaa inay hal musharax soo isugu tagaan oo intooda kale campaigners noqdaan waxa weeyeen nimankaasi waxaan leeyahay tareenka doorashadu wuu dhaqaaqay ayuu idinka tagin intaasaan iyaga soo gabagabeynaya qodobada ay soo saareen ama ay saxaafadda ka hor akhriyeen iyo meediyaha waxay ku tilmaameen kuwa waafaqsan sharciga iyo dastuurka Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya ay ku shaqeyso markaas qodobadaas hadii sharciga waafaqsan yihiin miyaysan ahayn in la tadbiiqiyo ama la dhaqan geliyo. aad baad mahadsan tahay. nimanka qodobada ay soo saareen waynu aragnay wax sharciya oo ay waafajiyeen ma jirto qodobada sababtoo heshiiskii hore ee lagu heshiiyey qodobadan wax aynu taaban karo waxa ugu dhow rag ay magacaabeen oo ay yiraahdeen hal laga saaro gudida kuwaana iyagu inay ka saaraan xaq uma ilahayna inay dawladda u soo jeediyaan bay ahayd ay madaxweyne ka codsadaan inuu xubnaha ka saaro waa nin maamul soo magacawday ninkii maamulkaas soo magacaabay baa ka saari kara gudida qodobada soo jeediyeen ama talooyinkii ay halkaas ka soo jeediyeen hadii ay dawladdu diido ama ay ka soo horjeesato ama ay tiraahdo maaha wax sharciga waafaqsan sidaad hadda adigu ka dhawaajisay ma ka dhalan kartaa saameyn siyaasadeed ama qolqolad maya ismalihi anigu wax saameyna ay shacabka ku yeelanaysaa arintaas sababtoo ah nimankani way hanjabeen doorashana meesha laga hadlayay doorashaynu ka doonaynay iyo tartan xalaala inay u diyaar garoobaan hanjabaadna cid waxba kaga qaadi karayaan hanjabaadina meesha ma taalo tartan siyaasadeed iyo looban baa loo baahan yahay dalkana bahaliga daaweyn oo dadcunihi ma joogo cid ay ka xoog weyn yihiin ma joogto. waa gartay daawadayaal wali waxaan ku jirnaa qaybihii dhexe ee barnaamijkeena saan hore u sheegayba Axmed Cabdiraxmaan Cilmi Axmed waxaa jirta guddi doorashooyin ay soo magacaabeen
kadib markii shirar badan ay dhaceen ay shireen maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya madaxdeedu ay isku waafaqeen heshiisyo waxay soo saareen guddi doorasho ay labadooda soo xuleen guddidaas waxaa qeylo aad u weyn ka muujiyay oo diiday meel kastana ka hadlay waliba ku taliyay in qaar kamid ah ay sharci darro yihiin waxa weeye oo laga saaro guddida musharaxiinta mucaaradka iyagoo waliba sheegeen iyaga laga talageliyo marka guddida la soo soocayo arrintaas adigu saa u aragtaa masaxan yihiin baad isleedahay guddidaasi mise way khaldan yihiin say sheegeen mucaaradku musharaxiintu door kumay lahayn sidii loogu talagalay ayaa maamul goboleedaduna qaybtoodii u soo xusheen xukuumadduna qaybtoodii bay soo xushay rag macquula oo aqoon-yahamiina oo mas-uuliyiin bay soo xuleen markaa waxaan u arkaa guddidaa inay ciddii xaqa u lahayd soo xushay waana rag runtii lagu kalsoonaan karo oo aqoon-yahamiina Axmed waxaa jira guddiyo gaara oo waxa weeye maamul goboleedyada iyaga u gaara guddiyadaas oo ka shaqeynaya doorashooyinka xildhibaanada labada aqal maamul goboleed kasta isaga guddidiisa magacaabanayay waxaa kamid ahaa xildhibaano ka soo jeeda waqooyiga Soomaaliya ama hadda ay ka taliso xukuumadda Soomaaliland guddidaas waxaa magacawday dowladda federaalka Soomaaliya siyaasiyiin waaweyn oo kamid ah ama ka soo jeeda gobolada waqooyi ay kamid yihiin gudoomiyaha aqalka sare oo ka biyo diideen wayna ka hadleen guddida xildhibaanada reer waqooyi yaa xaq u leh horta inay soo magacaabaan Shaafici guddida marka ugu horeysa sidii lagu soo heshiiyey xukuumadda ayaa soo magacaabaysa baa lagu heshiiyey walow ay maamul goboleedadu door ku lahaayeen haddii aad gaari weydiisay guddida gobolada waqooyi ninka ugu teetal sareeya gobolada waqooyi ee xukuumadda ku jira ayaa xaq u leh sidii guddidii hore ee 2016kiiba uu u soo xulay gudoomiye ra'iisul wasaare ku-xigeenkii xukuumadda xilligaas maantana waxa soo xulay ra'iisul wasaare ku-xigeenka gobolada waqooyina isaga ayaa xukuumadda ugu teetarroon isaga xaq u leh gudoomiyaha aqalka sare doorkii uu ku lahaan lahaa waxa uu lumiyay markii maamul goboleedyada lala shireeyay oo aanu shirarkiiba tagin sida aan ka warhayo xilliyo dhaweydna waa loo yeedhay oo in lagu heshiiyo oo lagu ixtiraamo oo talada wax laga weydiiyo waa lagu talagalay arrintaa isaga ayaa ku gacan saydhay sidaa awgeed loo dabranaan maayo waxaa guddida xaq u leh inuu soo xulo ra'iisul wasaare ku-xigeenka oo ay xukuumaddu u eegmatay waa tahay ka dambow hadaladii halkaasi social media la iska dhaafsaday gudoomiyaha aqalka wasaare wuxuu magacaabay guddi isaga u gaara uu soo magacaabay guddi horena waa tii la magacaabay dowladduna ay tiri guddidu way saxan tahay labada guddi ee la kala magacaabay ma keeni karaan khilaaf maya sharciyadu baa loo eegayaa gudoomiyaha aqalka sare guddi inuu soo magacaabo aanay xukuumadda la ogeyn oo kaligiis ka soo magacaawday xaquma laha wax allaala wax khilaaf oo ay keenaysaana ma jirto su-aasha ugu dambaysa haddaan ku weydiiyo madaxweynaha jamhuuriyadda iskeed isu magacawday ee Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi isagoo goob tacsiyeed jooga halkii looga baahnaa in lagu duceeyo wuxuu galay arrimo siyaasadeed wuxuuna ka hadlay khilaafka ka taagan guddida ay isku hayaan siyaasiyiinta waqooyi iyo dowladda federaalku wuxuuna taageeray gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi uu taageeray madaxweynuhu hore wuxuu yiri anaga naba matalaan nagabana mid ahaa maxay tahay sababta hadda uu taageeray ee keentay inuu taageero Cabdi Xaashi si xaq ma u leeyahay inuu taageero ama ka hadlo isagoo hore uu yiri nagama tirsanaa Shaafici horta marka ugu horeysa bulshada ama mujtamaca Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxa aan ka raali gelinayaa xaalna ka siinayaa
nacdashii uu muuse biixi xabaasha dusheeda rag maytaada oo Soomaaliyeed oo waqti hore geeriyooday uu ka nacdalayay ayaan ummadda Soomaaliyeed xal ka siinayaa midda labaad may qurux badnayn mana aha sharci diiniyana in nin weyn oo mas'uul oo xabaal dul jooga oo xabaashu ay xaq ku leedahay inuu u duceeyo maytaadkaas inuu kuwa hore dhintayna nacdalo kii joogayna aanu u ducayn arrin hore u maqalay maaha waana runtii arrin foolxumo ah xagga siyaasadda xabaal dusheedii siyaasad lagaga hadlaba may ahayn waxaase inoo caddaatay oo muuse inoo caddeeyey isagoo badho saabka Hargeysa ah inuu doonayo inuu ka qayb qaato xulitaanka gudiyada gobolada waqooyi ee Soomaaliya isagoo ujeedadeedu tahay inuu isagoo badho saaba ra'iisul wasaare ku-xigeenkiina uu isagu noqdo ama uu cid u dirto isagu waxaan u fashiliyay muuse biixi in rag halkan jooga wakiil u yihiin iyagoo oo dabraya danta ummadda Soomaaliyeed oo u shaqeynaya Somaliland muuse taasuu cadeeyay cidina ka yeeli mayso cidina ka aqbali mayso muuse hadii uu doonayo inuu dawladda federaalka kursi ka qabto dhulka iyo bangiyada uu marba iibinaya ee guryihii bangiyada Somaliland ee uu iibinaya intuu iska daayo haynoogu yimaado xamar ra'iisul wasaare ku-xigeen kursi ka sareeya ayuu xaq u leeyahay hadii uu midnimada Soomaaliyeed dhab ka noqoto labada kursi ee dalka u sareeya ayaa hadii Soomaaliya midoobayso ay gobolada waqooyi xaq u leeyihiin ka raadiyo muuse intaasaan muusana ku dhaafaya intaas ayaanu ku soo afmeeraynaa barnaamijkii falanqaynta siyaasadda oo idin la socodsiinaya anigoo ah Shaafici Cabdinaasir Maxamed Shaafici Shaacir barnaamijka waxaa noogu marti ahaa aqoon-yahan siyaasadeed oo ka soo jeeda gobolada waqooyi mudane Axmed Cabdiraxmaan Cilmi aniga iyo bahda walwal media way idinkaga tagnaa dhamaantiin bahda media walwal aad buu mahadsantahay وسؤال داويني دلك يا إسكالي